runtii halkan waa la sheegay oo sharafta iyo weynaynta aynu nimid oo isla wada cadeysanay runtii koow waxaan jeclaan lahaa marka mujaahidka weynahay ballan badan kale la xusayo inaan laga reebin mujaahide loo raaciyo maxaa yeelay waxay leedahay ixtiraamka dadkii noo soo jihaatamay ee dhiigooda noo soo huray in inaguna ixtiraamkooda ilaalino marka magaciisa qalalan inaan la xusine mar walba mujaahidkana loo raaciyo marka dambe la daabacayo inta lagu daro daabacada runtii waan u mahadnaqaynaa meeyar ku xigeenka oo hadallo badan oo halkan u socdana laga sheegay koow horta tani waa xaafadiisii waa degmadiisii waxaan isleeyahay dhammaan hadalka la yidhi waa u qaadi doonaa waxba ka tegi maayo hadallada codka lagu tuurtuurayna malaa xisbi kulmiye loo jeedaa anaa taana u qaadaya xisbi kulmiye shaqadeeda iyo codkii hore iyo ka dambaba mahadnaqeeda iyo in degmada lala dagaalamo kaana anaa qaadaya hadduu la idhaahdo meerkan isaga waxaanu ka rabnaa shaqadiisa meernimo inuu sii xoojiyo maadaama degmadiisii ay tahay waxyaabaha cabashooyinka laga sheegay wixii uu qabtayna loogu mahadnaqo oo waxa la qofka aan dadka u mahadnaqini ilaahayna uma mahadnaqo shaqada ballaaran ee qabtayna aan ugu mahadnaqno taa ballaaran aynu ka sugeynana runtii ay noo qabtaan Hargeysa waxay ku socotaa inay gobol noqoto oo xeerkii caasimaddu markuu soo dhaafo golahayaga Hargeysa gobol bay noqon doontaa hadday gobol noqotona degmadan iyo degmooyin badan oo kalaba way soo bixi doonaan maxay la gobolka dhulkiisu aad ayuu u weynaan doonaa marka degmada Haybalambad xagga hore ayay ka soo bixi doontaa ka golo wakiil ahaan runtii waxaanu ka caawin doonaa meeyarkii ku xigeenka in xeerkii caasimadda helaan iyagana waxaanu ka rabnaa inay shaqada xooga ay noo qabtaan